gabadha Abdullaahi adiga haye hooyadan magaca hooyadan noloshay Shariif Axmed Cabdullaahi haye ninka wuxuu ahay lagu nikaaxiyey walaayadeeda ama adiga diiba mise waa haye oo haqiiqa haye gabadha meherkaas maxaan dhihi karaa gabadhaas lagu leeyahay haye ugaa jirtay sida dadka qaar waxay leeyihiin gabadhaasi waxaa dhiibay aabaheed waxaa meheriyey aabaheed arrintaasi waa beeninaysaa waxaa leedahay gabarteyda mana la xididin qof kale ma xididin mana dhiibin sidaas miyaa leedahay dowladda Soomaaliya waxay sheegtay inay aroos qaran u dhigayso gabadhaada arrintaasi raalli ma ka tahay maxaad ugu baaqi lahayd dowladda Soomaaliya arrinkaas أنا كمية هاي دولة الله كسبنا إن كستان دولة هاي أرك كوان أنا ضاف حاول باقي أنا باقي كوان الله يقبل وأقول أولي جيرت قول أنا أولي جيرت ورش أول سنة عابه أنا عبد الله عبد الله محمد أحمد أنا عبد الله وحرير مصر سليمان ما أعرف سيك بدأ سيغاوت ما هاي marka gabadhaada afduub miyaa lagaaga haystaa أطول ما هاي dhibkan dhacay waxay ku yimaadeen horta gabadha adeerkeed inuu dhibkan ku dhaco wiilka adeerkiis كيف أقول لها arrintan sababa oo gabadha uu masaafaystay أول haye ugu dhacay خلاص ونفع فايك تعالى ما فايك xanuunsan marka Allah ka caafiyo adeer wax kale oo bedel kartaa ma jirtaa haye hada dawladda maxaa ka codsanaysaa oo gacantaada ku soo Soomaaliyeed hadda waxa wada hadal kula yeesheen markii ilaa hadda maamulii way ugu xiriirka soo haye okay ama ma tamaamaha baynta waxa dhaxlayay adiga in xaaskaaga aynan ahayn aad kala tagtaan waa baan xaaskaygu kama jiraan inta maamada xiran warbaahinta isla dhaxaadayaan xildhibaanada kan isla wada qaadayaan ay leeyihiin gabadha iyo duqa way kala tageen waa baantood la xiriir ku been waa arrin been abuur waa been abuur okay ugu dambeyn adigoo ka hadlayo xilligaaga fuulkaaga iyo dadkaaga ugu dambeyn dowladda maxaa ku baaqi lahayd jamac magaca dadkaaga ku hadlaya jamac baaqayaa xiriirka Soomaaliya maamada dadka ka hor ayay xirnay sida la sheegay ma arintaas wax maxaqiiq baa loo hayaa dilka ka hor maamada xirnay bisa falka markuu dhacay kadib la xiray maamada haye hada hay'adda media waxay sheegayaan maamadii markuu falka dhacay la xiray ka hor in la xiray ma xidhisa haye marka hadalkaas media oo warbaahinta media hadal hayo waa beeninaysa sama waxaad leedahay falka intuusan dhicin sitimaan ayay xirnayd sida la sheegay marka 4 maalmood ay xirnayd intaasaad u xaqiijinaysaa dowladda Soomaaliya madaxweynaha jamhuuriyadda iyo ra'iisul wasaaraha dalka maxaad ka codsan lahayd in gabadhaada arrinteeda maadaama aysan walaac badan bulshada ay ku abuurtay madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaraha maxaa ka codsan lahayd badan gabadha iyo badbaadiya gacantaadana ku soo celiya maamada xiranne ha ninkii dhintay arrintiisa in laga dhaqmo oo laga fariisto qabiilaadka ay ka fariistaanna diyaar reerka aad ka dhalata diyaar u yihiin
اوكي هذا ما ستعرف